ka beddelkii dastuurka qodobkiisa 6aad lagu kordhiyey faqrad 3aad mudane haddaa xasuusan tihiin baarlamaanka 9aad qodobkan oo 6aad wuxuu ku kordhiyey faqrad maadaama siyaasaddeena ay xasilooneen oo isbeddel uu jirayo in baarlamaanka kani uu fadhinayo ilaa baarlamaan kale yimaado haddii doorasho dhici weyso uu joogaya yani waxa weeyaan extension maaha waxa uu diidayaa firaaq inuu jamhuuriyadda baarlamaani uu dhaco firaaq hadduu dhaco wareer dhacay marka micnaheedu waxa weeyaan doorasho ma dhicin baarlamaanka uu fadhinaa baarlamaankii 9aad masalan xilhayntiisa waxay ku egeed agoosto 2016 laakiin wuxuu sii kordhay oo ay duruufaha geliyeen ilaa 4 waxaa la dhaariyey 27 December micnaheedu waxa weeyaan baarlamaankan tobnaad madashiisi waxay ku eg tahay December 2020 hadday doorasho dhici weyso baarlamaanka waa sii jiraya waa sii soconaya uu joogaya muddo kororsi maaha laakiin waxa weeye wuxuu diidaa faraaq haddii hal sano ay gasho sanado waa jooga hadday 2 gasho labadu uu joogaya taasna waxaad ku arki doontaan sharciga oo markaasi golihii shacbiga uu ansixiyey golaha shacbiga ee baarlamaanka 9aadna wuxuu ahaa labada xilba isaga isku hayay aqalka oo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare isku haysaa daraaad meeshii golaha shacabka aad ku akhrisaan sharcigaas micnihiisu waa baarlamaanka federaalka faqradda labaad labada aqal ee baarlamaanka federaalka haddii doorashadooda si wada jir ah loo qabto natiijada doorashadana isku taariikh lagu soo dhawaaqo waxaa kulankooda ugu horeeya la qabanayaa 30 maalmood gudahood oo ka bilaabata maalinta natiijada lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed arrin degdeg ah oo markaa jirta awgeed ay la haboonaato inuu isugu yeero in muddada korkuusan ka hor la qabto macnaheedu waxa way 30 maalmood gudahood ka hor ayuu u yeeran karaa haddii arrin degdeg ay jirto faqradda 3aad haddiise ay doorashada la qabto taariikh kala duwan oo natiijadana lagu kala dhawaaqo taariikhyo kala duwan aqal walba waxaa kulankiisa ugu horeeya la qabanayaa 30 maalmood gudahood ka bilaabato maalintii mid walba natiijada doorashadiisa lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha uu muddadaas warsado intaas waxaa tusaale ahaan labadaas qodob aan soo qaaday laakiin ilaa 5 cutub waan qornay iyagoo sidaa u tartiibsan haddana magaciisa waxaan rajaynayaa inaan guddiga u gudbino haddii aan yiraahdo muddo gudoomiye lafaha hadda aan ka magaciisa lafaha oo markaa oo aan ka hadlayay waxaa maqal baan ahay xogeenkan u gudbin doonaa haddii ay la haboonaato inuu guddiga ka naqaystaan sida ay u samaysnayso waxaa waye sida laysu kala rarayo loo soo rarayo laysku keenay si taxaalka rasaynta cutubyada iyo taxaalka qodobada ay u caddaato markii aan fiirino qodobka 11aad faqraddiisa 2aad mudana gudoomiye nidaamka doorashada dastuurkeenu tilmaamay wuxuu ku hirgeli karaa dalkeena oo dhan markii loo qaybiyo deegaan doorasho kastana loo cayimo tirada kuraasta ay qoonda ahaan u leedahay dowladda oo gudata waajibkeeda oo ah in dhammaan muwaadiniinta buuxiyey shuruudaha ay u sugto amnigii iyo rugihii lagu codaynayay iyo haddii la kuuron yahay waxyaabihii oo loo baahnaa marka meesha xaq iyo waajib baa jira xaq muwaadinka wuxuu yeeshay xaqii codaynta in markaa oo si madax bannaan uu codeeyo waajib waxay ku tahay inuu codeeyo laakiin waajibka saaran xukuumadda ka culus kan oo muwaadinka waxaa suurtoobi karta anigoo oo muwaadin ah inaanan codaynin fardul kifaaya camal u noqonaysa haddii dadka badankiisa ay codeeyeen waxaa suurtooda inaanan codaynin laakiin xaqa aan leeyahay waxay tahay in meel aan ii dhow oo marata rugihii lagu codaynay la ii keeno amnigii la ii sugo in marata si xura aan u codayn karo ilaa aakhirihii waajibaadkaas waa lagama maarmaan haddii tusaalaha u soo qaadano nidaamyadii hore masalan haddaan ka soo qaado 1961 waa markii ay tirada shacbiga Soomaaliyeed lagu sheegi jiray 3.5 milyan waxaa la sameynayay doorashadii ugu horeysay oo la dhigay referendumka oo dastuurka waxaa markaa dalka uu ka koobnaa 36 deegaan doorasho 36 degmo bal male imis rugood baa la dhigay jamhuuriyadda dhan oo la sameeyey
labada degmo oo ugu yaraa oo ugu tiri yaraa waxay ahayd berbere iyo laascaanood. berbere waxaa la dhigay 118 goobood oo lagu coday. laascaanoodna waxaa la dhigay 117. waxaa yaraa tuulooyinkooda ma babaxsaneen kastoo waa urursan yihiin. laakiin markii jubbooyinkii meelaha aad timaado degmadiiba 140 160 intaas la dhigay. adig wadar ahaan waxay noqotay 5,227 rugood ayaa la dhigay. rug walbana waxaa looga baahan yahay 4 qof ugu yaraan inay joogaan, gudoomiye, 2 hubiye ah iyo 1 xogeeye. marka 5,000 ku dhufo 20,000 weyn. hadda maanta ma suurtagelaysa, laakiin inta la dadaalo waa laga maarmaa. yani waajibaadka saaran waa culayskiisa xukuumadda ayaan u sheegaya, ama ciddii diyaarinaysa guddiga madaxa bannaan hadday noqoto. marka qodobka 43 ee dastuurkeena wuxuu farayaa in nidaamka matalaadda inuu ahaado mid furan oo qof walba fursad u siinaya inuu ka qayb qaato. haddaba fiirsa, inuu ahaado mid furan, mid walba, yani qof walba micnaheeda shacbiga oo dhan waaye, intii oo buuxisay shuruudaha ka qayb galaya. inkastoo guddigu uu si fiican usoo fiiriyey, usoo shaqeeyey, oo uu hadda ka wanaagsan yahay sidii hore oo xukuumadda ay disaan kusoo gudbisay, haddana qodobka 11 ee nidaamka doorashooyinka yani haddana hor yaalla, guddiga caloosha unbuu ka furfuray oo yidhi kursi walba waxaa toosa loo dooranaa buu yidhi. waa hagaag, waa tallaabo horumar ah waaye, laakiin liiskii weli koruu ka xiran yahay, waa 275. marka taa ma habboon tahay mise waxaa ka habboon in maaragtaa si kale oo axsaabtan ay ka bixi karaan oo ayna suurtageli karto loo sameeyo. saa daraaddeed anigu shakhsiyan xildhibaan ahaan waxay la tahay, waana soo jeedinayaa in liiska meel baanu gaarnay. nimayo waxaa fiican soomaaliya marba waxbaan gaarnaa, guusha aan gaarnayso naga xumaan aan haysano lagama maarmaan. 2016 markii hore waxoo dhan waa isku jacbursanaayeen, xamara laga samaynayo, cartaa lagu samaynayo ilaa aakhiri. laakiin 16 waxaa la gaaray in la degaameeyo, la goboleeyo, aan idhaahdo gobolladaa la gaarsiiyey. hadda puntland way taqaanaa inta kuraas ay leedahay, south west way taqaanaa inta kuraasoo meesha agteeda jirta ilaa aakhiri. marka in haddii taas aan gaarnay aan yani ciriina la sii gelinin oo colaad dambana ay nagu samaynin oo qalaas kale aysan u kicin, waxaa la qaatay iyadoo sidaas ay tahay inaan ka sii horumarino, aan idhaahno yani guddiga madax bannaan iyo in laga dhigo heer goboleedka ay joogtay, in guddiga madax bannaan iyo dowlad goboleedyada ay wada tashadaan inta kuraas oo ay degmooyin u diri karaan inay u diraan. meeshii hadda masalan south west aan ka soo qaado, meeshii baydhabo keliya ay ahayd, maanta waxay geyn kartaa baydhabo, ay geyn kartaa xudur, ay geyn kartaa bardaal, ay geyn kartaa burak, ay geyn kartaa baraaw, ay geyn kartaa afgo, ay geyn kartaa. inta kale ay la samayn karin baydhabo ay ku reebi kartaa. sidoo kale puntland in badan bay geyn kartaa, garoowe, gaalkacyo, mashaarifiye ilaa aakhiri, boosaaso, qardho waa la geyn karaa. marka inaan ka hor yani inaan si tadriiji ah dalkaan aan u wadno, tabarteenna inaan ogaano, sida oo maaragtaa shareecadii sunnada aan ku soo baranayna dhahayso raxima allaahu rajulan carafa qadra nafsi, yani ilaahay naxariistiisa u sugnaanaysa qofkii ogaada heerka kartida, tabarta iyo taagta iyo tabarta iyo kartidiisa ay gaarsiisan tahay garta. marka inaanu garanno si tadriiji ah dalka aan u wadno, annagoo tixgelinayna wacyiga ummaddeena meesha u gaarsiiyey. marka taa waxaa ilan tahay in maaragtaa taa waxay keenaysaa xisbiga masalan oo ku tartamaya 4 kursi ee la geeyey xudur, 4taas kursi u tartama, kan u tartama meesha 275 u tartamayna xogayar hanalookaas shacbiga intuu ka soo kobcayo, yani wacyigiis ka soo kacayo, aan u turno shacbiga. axsaabta siyaasiga oo kale haddii aan wax ka nidhaahno oo ayagana ay ku xiran tahay arrintan, ay ku xiran tahay su-aalaad badan baan isweydiiyey oo shakhsiyan ah, runtaa fiican in la sameeyo. anigu waa diidanahay, ma diidani, waxaan ka mid ahay dadkii u horseeday in axsaab siyaasadeed sharcigiisa uu ka diirgalo dalkan ayaan ka mid ahaa. weliba markii ay xukuumaddii waagaas jirtay ee ka gaabisay, waxaan u bixinay xildhibaano gaara, 21 xildhibaan baan u bixinay, private initiative aan ku qaadanay. ma aha xukuumadda ma keenin, baarlamaanka ayaa kaxeeyey
oo dowladdu xukuumaddu waxaan weydiinay war ra'yigeena ku soo darsadaan saasay ku socotay ku socdeen dhammaan waxaad u jeedaan guddiyadan samaysan oo madax bannaan iyo kulligood wax saasaan ku wadnay oo baarlamaanka sagaal uu ku soo saaray igama aha marka ka hor imaad maaha waxaan rabaa inaan loo naxariiso axsaab siyaasadeed loo naxariiso waxaan uga jeedaa liiskaas oo la furo hadda xiran in laga dhigo 6 liis oo kale oo 6 liis oo gobolada loo diro kabacdina la degmeeyo iyo gobolka banaadir lagu daro taas waa mid waa naxariis loogu naxariisanayo axsaab siyaasi waa naxariis aan ugu naxariisanayno shacbigeena waa arrin yaraynaysa waxyaabo dhibaatooyin caloosma oo cusub ay naga reebaysaayo hadda meeshaan gaarsiinsanayo tan kale waxaa markii hore oo xukuumadda ay soo jeedisay waxa la yidhahdo threshold ama shardiga ah magaciisii haddaadan 19 xildhibaan helin ka kaca tahay guddiga waa soo dadaalina waxay keeneen 4% 4% waa 13 xildhibaan 13 xildhibaan wax yar maaha sideedana waxaad ogaataan caalamka dhan u fiirsada threshold haddaa aragto shuruudahaasi waxay ka hiilisaa axsaabta yaryar waxay u hiilisaa axsaabta waaweyn siiba xisbiga markaa xaakimka ah soomaaliya waa jirtay ereygaas in mar la keenay waxaana keentay Israa'iil markaa xukunka haystay waxay yiraahdeen marka ayaga waa naga fiicnaayeen xogaa waxayna xisbigii keeni waaya hal kursi xisbiga ma baaba'ay waa jiraya ilaa ninka mikrofon xagga biyo ha hayso haburaha mar shacbiga ma la afjikay xisbigiisa wato laakiin wuxuu yiraahdaa xisbigii marka la qaybinayo xaasilka ama quotient yiraahda quotient la qaybinayo xisbigii quotient kuwaad hal kursi ku keeni waaya qaybta waa ka haraya laakiin hadduu hal kursi keeno qaybta kale uu ku sii jiraya marka quotient la sameeynayo markaasi ma aha quotient national oo yani dalka oo dhan ma aha deegaan doorashadaasi imise qofooda codaysay imise kursiya taala loo qaybinaya halkii kursi saasoo ku imaanaya markaas marka waxaan leeyahay loo naxariiso axsaab siyaasiga jiritaankooda 4 han laga dhaafo almeen hal kursi hal dhaho ama tika la iskala daayo ayaan qabaa marka thresholdiga wuxuu keenayaa ha ka cararina ha dhibsanina tirabadnaanta axsaab siyaasadeed anuu shakhsiyan waxaan ahay xirti marata oo wax ka soo xigatay allah yarxamu aadan cabdulla cusmaan oo markaa madaxweyne ahaa mar walba oo nagula dardaarmaya ha loo hiiliyo axsaabta yaryar ha la dhowro ha la daryeelo axsaabta yaryar ayuuna oran jiray axsaabta yar waxaa waaye haddii kalluumaysata ay xisbi samaysato haddii beeraley ay samaysato haddii fardoole ay samaysato khali la xaalo waxbay ku soo kordhinayaan ra'yi bay keenayaan oo la yaraysan maayo taana meeshaas aan uga baxo arrimaha kale waa waxaa cutubada kale ila gelayaan madaan gudoomiye anigu waxaan leeyahay arrinta oo kow aan soo jeedinayo oo aan adkaynayo waxay tahay lafaha iyo rasayska cutubyada ha loo fasaxo guddigeenna ka shaqayno hayo inay soo raraan ha u arkin inay cusub tahay waa la soo raraa waa la sugeynaa sida marta mafhuumka uu sameeyo arrintaas waa arrin muhiim ah oo aan xildhibaanada ku adkaynayo inaan u fasaxno guddigeenna inuu arrintaasi farsamo ahaan oo isu raro si muwaadinka Soomaaliyeed wax u fahmo axsaabta siyaasadeed oo daneynaysa ay u fahamto siyaasiyiintana waxay u fahmaan meesha ay u sameeyaan taas oo fududeynaya wuxuu kaloo fududeynayaa haddii nidaamkaas la soo qaado madana gudoomiye mustaqbalka haddii aan doonno in sharcigan marka uu nagu gudbaayo insha Allah oo hadduu saad aan soo jeeday uu nagu gudbo waxaa fududaanaya in hadhowdii aan ku dari karno doorashada degmooyinka